السلام عليكم halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada haddii aad jeceshahay horumarkeena fadlan channelkan subscribe inoo dheh kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad waad ku mahadsan tahay booqashadaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا قيمها يا قايان نقبض ميل با joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaab ka farta looga dhigo mid bold ah ama buuran markaad isticmaalayso WhatsApp-ka balse marka hore daawada haddii ay tahay marka ugu horeyso oo soo boqoto channelka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo dhahdo gambeelkana aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena cusub sidoo kale haddii aad la jeceshahay asxaabtaada inuu muuqaalkan sii gaarana fadlan u sii sheergaree si ay uga faa'iideystaan dad badan oo jecel barashada cilmiga kombiyuutarka waana ku mahadsantahay dabcan daawashada muuqaalkan sida caadiga ah waxaan ognahay in WhatsApp-ka uu ka maqnaado waxyaabaha daruuriga ah ee nolosha bini'aadamka iminka ay la qabsatay WhatsApp-ka sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu wada xiriiro gaar ahaan familka iyo asxaabta dabcan dadka waxa ay isticmaalaan qoraal kala duwan oo ay wada sheekaystaan haddaba haddii daawada aad jeceshahay in qoraalka qofkaad u darayso uu noqdo qoraal aad u madow aad u burburan aadna loo fahmi karo boldina ah waxaad isticmaashaa dabcan xeeladan aan maanta ku baran doonaa muuqaalkan marka hore waxaad soo kicisaa WhatsApp-kaaga marka uu sidan kugu soo kaco waxa aad doorataa qofka aad jeceshahay inaad u qorto qoraalka kadib waxaad imaataa qaybta lagu qoro fariinta qoraal kasta oo aad qoraysa iminka waxa aad ka hormarisaa calaamadda xidigta iminka qofkan ayaan rabaa inaan u qoro qoraal tusaale waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib kadibna waxaan kusoo xirayaa calaamadda starka u fiirso qoraal kasta oo aad rabto in laga dhigo bold kaliya waxa aad samaysaa waxaad ku dhex qortaa laba star dhexdooda ama laba xidig dhexdooda xidig marka hore ka bilaab kadib qoraalkaaga iska wada dhamaystiro marka aad rabto inaad soo xirto qoraalkana xidig kale kusoo xir kadibna waxaad ku dhafataa send hadda waad aragtaa in qoraalka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiib uu noqdo mid bold ah sidaas ayaadna u wadan kartaa qoraalkaaga isla markaana uu noqonayaa mid bold ah waad aragtaa iminka in qaabkan uu yahay qaab aad u fudud isla markaana farta ay tahay mid aad u muuqata qofkana aqrinteeda uusan ku wareeri doonin waxaan rajaynayaa daawada muuqaalkan inaad ka faa'iiday isla markaana aad wax badan ka baratay qaabka farta looga dhigo bold gaar ahaan markaad isticmaalayso WhatsApp-ka muuqaalka xig inta kulmi doono waa halkan Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku dhaafay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh